haddii aan dhanka kaga soo laabno dhanka miyiga iyo magaalka farqiga u dhaxeeyo ma jiraan maansooyin aad ku cabirayso tacadiyada ama dhibaatooyinka loo geysto haweenka oo muddooyinkii dambe kusoo badanaya gudaha dalkeena Soomaaliya qaar ka mid ah gobolada haba u darnaatay dhanka kufsiga waa sax dhinacaas aad weydiisay horta way jiraan maansooyin aan ka sameeyay waliba waxa ugu caansan bulshaduna taqaanaa maanse leeyahay gocasho oo maanse dheer oo wax weeyaan aan jeedin doono hadda waqtiga nagu yar waa maanse aad u dheer oo aysan geli karin laakiin insha Allah kulamada dambe aan soo gelin doono maasadaas aan aad uga hadlay keligii kufsiga kaliya tacdiyadu waa kala bedelan yihiin waana fara badan yihiin qofasi uu la kulmaa laakiin kufsigaas aad ugu daran oo midka dalka wax weeyaan aad ugu soo laabtay ah marka way jiraan maansooyin aan ka tiriyay way jiraan wata hadda dhanka iyo maansooyinka si guda galno maaso waxa jirto cawramaan la dhahayo bal maasadan maxay ku timid qaab sidee baad ku tirisay wad maasantahay maansada cawramaal iyadoo qoraalana bulshada wala wadaagay waxaan ku faraxsanahay muuqaalkeediina ay ka daawan doonaan waxa weeyaan BCTV maansada cawramaal muddo dhow bay ku dhalato tiriyay waxaana ka hadlaysaa waa tacdiyada qayb kamid ah laakiin kufsiga maaha inta badan social media hadda haasawiyaan ka hadlaynay waliba magaalada marka la joogo inta badan waxyaalaha ka dhaca waxa kamid ah social media in labada qof xiriiraysa sawirro ama private khaas ah adeena caadi ah adeena la isdhaafsado maadaama dadkii iskaga dhawaanayaan isfahmeen waxa imaanaysa marka la isku dhaco qofkii imaan lahaa ee deganaayo dhaqan iyo wax weeyaan xushmad iyo asluub lahaana halkaas uu ka baxayo kii kalena halkaas uu wala istaayaa waxa la yiraahdaa hortaadi hiba Allah ka dhigo laakiin wixii awal khaldana inta badanna waxay ka yimaadaan ragga sidaan aragnaano oo ninka hadda wax laga ceebeeyaa waa yartahay in kasoo ay jiraan oo marka waxay ka hadlaysaa dhanka gabdhaha taswiirta oo kala ama sawirada in gabadha sawirkeedii wiilku la haro markii la shukaansanayay la mataqaanay xiriirkii asaawa la sameeyay sawiradii loo soo diray markii wax yar isku dhacay yimaado xanaaqo inuu si khaldan u isticmaala dhici karta oo noocyo kala u faafiyo ba dhici karta qaarkoodna ku saabirayo argoosi ka wada marka way jiraan kuwa intii beesho furtaan gabdho sawiradooda qurqurxoon soo dhigo yiraahdo guurdoon baan ahay nambarka la igala soo xiriiro oo inta badan rag bay u badan yihiin marka ragga nooca sameeyayana anigu waxaan ku cabiri lahaa markaan waxba canaanan maye waxaan dhihi lahaa rag dumarkiina waa ka tageen ragna ma gaarin waa meel dhexe oo hadda waxaan leeyahay qalabkii ragga waa leeyihiin laakiin qiimihii ragga ma leh qiimihii ragga ma lahan marka meel bay ragga waa ka hooseeyeen in ragga maba lagu yaqaanaba iska daa mid xiriir dhex maray xitaa mid ay meel isaga soo baxeen inuu yani sharafteedaba wax dhaawacaya isagaaba difaacaba marka hadday jiraan oo fiirsanayaana waxaan leeyahay ragga ku soo darsama ragga caadi ugu soo raacaan leh marka sidaas maansadu ka hadlaysaa maansada cawramaal waxay leedahay caamiyo nin liitaa dumarkaba canaado caamiyo nin liitaa dumarkaba canaado caqli yarin indhumaya cuqdo dumar la guuxo jaahil aan cilmi ka baran ayaa cududa gooye wala caaqil garasho leh nin cargaagtan laga tiray ciisidooda kama tago had baraadi ceebaha gabadha aaminaad culus cindigeeda ku yaal ku ciqaab taswiirada ku canaad kalsoonida ku ciqaab taswiirada walaasha ka dhiga camal adna cirib kolay tahay bulsho caawin kuma lehid bari kuma ciseeyaan cilad baad qabtaa weyn misna aan cid kula arag waxaad cara u qaataa waxaad ceeb u doontaa waxaad ceeb u doontaa cusri aad la jeceshahay boohintooda cugataa iyo caba tidhaahdaa dumarkii caloolqaad culayskaaga sidi jiray adoo cudud u noqon karaa adoo cudud halkaan kula talinaya waxaan leeyahay intaan sameeya adoo cudud u noqon kara gabar ciidan tari kara kolkay carab timaadana u canaanan kara hoos sideedaba markii la isku xanaaqay la isku canaantay wuxuu rag iyo dumar la kala yahay ama wiil iyo gabar ay yihiin publica ku fiicna in hoos loo xaliyo oo wax weeyaan hoos la isku canaanto iyo u fiican tahay sidii weligeed bal arki jiray kolkay carab timaadana u canaanan kara hoos hadday ciirso noqotana caawimaad ka dhigan kara waxbay ku gar haday kula jirto inay ku gaari mayso hadday ka jirtana adiguna waligaa wax gaari maysid
labaduba waa waxa weeyaan marka waxa la isku dayaa inay kula jirtaa mar walba la isku dayaa hadday ciirsi noqotana caawimaad ka dhigan kara markay caalamkaa tahay adoo calanka suran kara cisigooda bili kara baryahan tigreya baa la warwareejinayay oo waxa weeyaan marka waxa weeyaan markay caalamkaa tahay caalamka gabdhaha markii lala tartamayo ama la isbarbar dhigayo adoo calanka suran kara kuwaaga cisigooda bili kara marka waxaan leeyahay tigreya maana bal kuwan calanka noo suro kuweena adoo calanka suran kara cisigooda bili kara adoo ciidayaal garab cidna kuu gargaarayn bal inay ku caynshaan adoo maanta cugan kara abaal culus u dhigan kara halka ninkaa uu ka xumeeyey ninka abaal u dhiga Soomaalidu waxay yiraahdaan abaal raaga rag iyo geel baa leh si kale haddii loo dhigo dumarkuba abaal waa galaano weliba waxay kaga duwan yihiin ragga ninku haddaad abaal u gasho wixii aad u gashay inuu kuugu gudo iyo wax ka weyn inuu kuugu gudo waa laga yaabaa laakiin gabadha maanta haddaad nolosheeda badbaadiso ama meel khaldan ay ku socotay ka weeciso oo aad jidkii guusha tusto markay guulaysato waxba laga yaabaa in qalbigeeda ku soo dhaco wariyan ninkan wanaagsan baa ku caawiyay laga yaabaa nafteeda inay ugu abaal guddo marka waa abaal culus u dhigan kara adoo maanta cugan kara abaal culus u dhigan kara caynaankooda qaban kara mar haddaad ciqaab iyo ceebee ku falan tahay caqli kale lagaa tiray ciladaadu waa amag garashada caadkaa fuul cindigaagu minil noqoy qabkii ciidda lagu aas xood ku dhaan danaysiga qalbigaad ka tahay cayr isagii baan la hadlayaa intaanu astaan buu leeyahay astaamahaasuu leeyahay ciladaadu waa amag garashada caadkaa fuul cindigaagu milil noqoy qabkii ciidda lagu aas xood ku dhaan danaysiga qalbigaad ka tahay cayr wax loo reebto maaha marka gabadhii baan la hadlaya waxaan idhi cadrad yahay war moogani rag wada ciraab hadal cadli kuma sinaado wada caaqil maahe ugu citin rageed iyo mid cineynayaa jira maqal arag cudooney ereyga cudoon inta badan maansooyin wax laga yaabaa dhowr inaan u isticmaalay gabar hooyadeed cudoon ula baxday haddii ay jirto oo ay daawanayso iyada kama wado laakiin magacaas gabar ahaan baan usoo qaatay maqal arag cudooney carrigan waxaa nool han corcoorle xaasida waxba ciidda hays dhigin calmashada ku soo rideen rag hadduu ku cuni rabo ku colaysan maayee waxba hays cajabinine shalay gabadh la ciilaa kuugu filan cibaarada ninka cawo ku dhiiraday naadi cawra dumareed carre eda ku sii fidi ama sharaf cisiya magac gabadhnimo ka cayrtee caaye saacidaa jira mid kaloo garab ku siinayaa jira ninkii ceeba weyneed nin bandhigay ku caawiyey ama ciidan siintii xoogideeda ciid dhigay markii ay kusanayeen ninkii ciid dhigay u celceli ku gaabsado yiraahdo war anigu ma kusana way u celcelinaya kaliya tin iyo cidhi mid weeyaan ka casilan ragnimadii godobtoodu waa caan way ka sameeyeen weligaa ha caasiin ha culaysin waa gobe ku cisee nuglaanshaha u calool furnow abid ha colaadin waa garab mar canaano waa gare waxba cadhada ha u qaban waa cashiiro kuu roon ogow dumarku waa cudud intaas iyaduna ku egta waa tahay waan filayaa daawadayaasha inay ka wada heleen maasadaasi cawramaal oo abbaanka inta badan marxaladda iminka waddanka ka taagan uu kusoo gudbinay isagoona canaan iyo dhiirigelin dhalinyarada Soomaaliyeed u diray waxaan filayaa abbaane in dhalinyarada inta badan joogta maanta ay u noqon doonto 10 ay ka baran doonaan maasada cawramaal tiradaad kusoo koobtay daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka Maadiska oo toddobaadkan marti noogu ahaa Abbaan Cabdiqaadir Cabdinuur oo inta badan inta barnaamijka socday maasooyin sheekooyin inoogu soo bandhigay abbaan ugu dambeyn hadda dhankaaga soo laabto daawadayaasha ku daawanayo waxaa jiraan abbaano da'yar oo jecel inay ku soo biraan dhanka iyo tirinta maasooyinka iyo gabayada bal maxaa looga baahan yahay qofka markuu rabo inuu noqdo abbaan ama qof doonay inuu maaso tiriyo sharciyada looga baahan yahay maxaa ka mid ah waad mahadsan tahay dabcan way jiraan hal abuuro badan waan waqtigu u saamixin horta si guud ninkii hal abuur haya meeluu ku soo bandhigana waayey adduunka hadda waa digital wax inta warqad la qoro la akhriyo buug la akhriyo inkastoo buugtana waa la akhriyaa laakiin waxa ka fudud digital way adduunku in social media laga daalacdo waxaan leeyahay hal abuurkii marka haya suugaan iyo murti nuxur leh oo waqtigu ka hiiliyay ama awoodi waayo inuu soo bandhigo horta waxaan leeyahay bahda BCTV aad bay maasan yihiin dhiirigelinta haldoorka bulshada marka iyaga waxa weeyaan iyagaaba ku soo bandhigi doono
insha allah waxa weeyaan iyagaad ka heli doontaa wixii dhiirigelin iyo garab istaaga dhanka kale qofka abwaan noqonaya horta abwaan inkastoon ku arkay maalin dhaweyta youtube-ka anoo wareegay youtube-ka wax walba waa lasoo dhigayo noqo abwaan ha sidii inaad qudaar iyo wax samaynayso wax weyn marka laakiin way adagta abwaannimadu haddaad hibo u leedahay laakiin aadan iska warqabin oo weli aysan kugu imaan marxalad aad ku tirin karto yani marxalad aad u baahato haddaysan weli kugu imaan ama aad tirisaba xoogaa ay kaa wax weeyaan wareersan tahay waxaa jira bugaag badan oo laga qoray oo waxaa jira aragtiyo waaweyn aragtida caraale iyo gaariyo oo miisaanka maansada hadba bugaag waaweyn oo waxaa jira laga qoray godad bay leedahay maansadu way kala bedelan tahay shuruuciyay kala leedahay alan baa loo fiiriyaa shaqalaa loo fiiriyaa dalab iyo deelqaaf iyo way badan tahay marka halkan kuma soo sharaxi karno waqtigoo naga yar awgeed laakiin waxaan leeyahay qofkaas isaga ah waxba yuusan isdhigan iyo wax yuusan isdhigan wax yar baa u dhiman haddiiba uu dee shuruucii ku wareersan yahay dabcan saaxaddii hal abuurka waa saaran yahay waxaan dhihi lahaa marka hal abuurada kale oo kaa waaweyn kaasho bugaagtana aad u akhri waad gaari doontaa insha allah abaan ugu dambeyn maxaad talo usoo jeedinaysaa dhalinyaradaada yar ee ku daawanayso qaarkood ay joogaan dal iyo dibadba maxaa fariin halkan ugu diraysaa wacyigelin talo intaba wacyigelin iyo talo horta waa salaamaya inta ay daawanaysa dhalinyarada ah odayaal iyo xataa hooyooyinba waa salaamaya iyaga dhan waxa weeyaan dee dalka horta marxalado kala duwan buu ku jiraa anigu inta badan siyaasadda ma siiyo ahmiyad oo aad siyaasadda waa ka maqanaha arrimaha bulshada yaan aad u fiiriyaa arrimaha bulshadana dhaliilo badan baa ka jira waxa weeyaan waxaan rajaynayaa insha allah dee intii hadda aan soo sheegay anugu in horta waxa weeyaan lagana digtoonaado lana xaliyo sidoo kale waxaan rajaynayaa hadday dowladda tahay iyo hadday bulshada dhexdeeda tahayba wacyigelinta bulshada in aad loo siyaadiyo waxa weeyaan dee qolo walba waxa weeyaan in la wacyigeliyo ama waxa weeyaan lagu wacyigeliyo mataqaanaa social media ha lagu wacyigeliyo qaab kale oo la awoodo wacyigelintu aad bay bulshada muhiim ugu tahay dhan walba in laga wacyigeliyo arrimaha badan waxa weeyaan hadda dhibka iyo khilaafka ee taagan bulshada dhexdeeda anigu siyaasadkan bulshada dhexdeedii ayaaba waa la iloobay bulshadii waxay ku mashquulshay siyaasad iyo ayaa soo baxay iyo hebel laakiin waxay ilooday iyada arrintii dhexdeeda arrimii dhexdeeda iyo noloshii asaasiga siday u dhaqmi lahaayeen marka insha allah wax weeyaan wax badan in laga qaban doonaan rajaynayaa waxaan leeyahay bulshadu la isu caawiyo hana la isku naxariisto magaca Soomaaliyeed baa naga dhaxeeya isagaana naga badan isagaana nagu filan isagaana isku naqaana aad u maasan tahay kala soo qaybgalkaaga barnaamijka maadiska oo aad kaaga mahadcelinayno waa tahay daawadayaal guud ahaan barnaamijka maadiska TV-ga Business Connect toddobaadkan waa naga inta toddobaadkan barnaamijka waxaa ugu marti ahaa Abaan Cabdiqaadir Cabdinuur Murtile oo inta barnaamijka socday noogu soo bandhigay maasooyin aad u xiiso badan barnaamijka waxaa idin soo saartay in la socodsiinaysay anigoo Ikraam Bashir Yuusuf dhanka kaamirada wuxuu ahaa Cabdullaahi Booyo dhamaantiin isku doon waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo